وحناهاي وهديك دوسيدا وحناهاي وانا معلمك وحناهاي وهديك دوسيدا وحناهاي وانا معلمك واجي بريبا او بحلقا ورابشو واجي بريبا او بحلقا ورابشو وحنكو ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحنبار واجب كيس وحنبار واجب كيسا وهسنينو وابن مينو وروريقي مينو ويعن مينو وهسنينو وابن مينو وروريقي مينو ويعن مينو. بسم الله الرحمن الرحيم. مقعي هو أحمد جامع ضاني ودقيقة مادة حسابتا فصل كاللحاد أنتم كصدحات بين شلي بلوني وشومت تريقها كيبين سيوضنا شلي واحد دقناي ميريسكا يجوبو يمكن دقناي واحد دقنا شلي وكلا عنك جوبو بيو حلقوه لا يقاعدين كيس دمانتين ما أنتنا واحد بلاوينا أنتم كيس صدحاتهم بيسيوضنا شومت تريقي مقصد شباكة مقصد احتبارني يو مقا ساتشباكة لابد مق بين كليجنا حتى لو بدنا محاكو كل الدوينهين مقا سدح شبارني يمقا ساتشباكة سدح شبارني واحد شاحن له لحوتش أو ضمان إسلاك سدح شبارني وشاحن له لحوتش أو ضمان إسلاك لحده وتشبو إسلاكهين لحدي سوى تشبه ضمان تدو إسلاكهين وشاحن كارك صورنا كلا هرت صدق لبا شاحن واسكميت لكن سي way kala duwan yihiin waana in arki doona saaka si fiican oo baran doonta kala duwanaanshiyaha ay kala duwan yihiin waayay sajibaka waa shaxan leh lix wajiisna oo laba kasto iska soo horjeeda ay isleeyihiin laba kasto iska soo horjeedaba ay isleeyihiin laba kasto iska soo horjeedaba way isleeyihiin waayahay maxaan ku kala cadaynaysaa hadoo shaxan labada shaxan maxaa tiri sajibaka iyo saddex jibaarani way kan waxa weeye maxaa kartoon ha ahaada kartoon kan waxa weeye imika waxa weeye sajibaka inuu sajibaka yahay waxaan ku cadaynaynaa sajibaka waxa uu leeyahay laba dhinac kasto iska soo horjeedaa buu isleeyihiin saddex jibaarana lixiisa dhinac buu isleeyihiin lixiisa dhinacba way iswada leeyihiin dhamaantood oo lixiisa buu isleeyihiin imika kan hadii halkaas 5 cm noqoto halkana maxaa waxa noqonaysa ka soo horjeedkiisa kalena waxa noqonaysa 5 cm haddii halkan ay noqoto 4 cm halkan waxay noqonaysaa 4 cm haddii wejigaas uu noqdo 2 cm wejigiisan kale wuxuu noqonayaa 2 cm marka eeg lix weji buu leeyahay waa 1 2 3 4 5 6 lixda weji buu leeyahay marka kan waxa lagu magacaabaa sajibaka waa muga sajibaka wuxuu leeyahay lix dhinac oo iska soo horjeeda halka kalena uu leeyahay isna lix dhinac lixda dhinac ee iska soo horjeeda ka kale lix weji buu isna leeyahay laakiinse dhamaan wajigiisu is wada leeyihiin haddii kaasu imika saddex jibaarani marka la sharaxayo saddex jibaarani haddii halkaasu imika ay noqoto 4 cm kana wuxuu noqonayaa 4 cm kan kalena 4 cm lixdiisa waji oo dhanba waxay wada noqonayaan 4 cm markaas sidaas muuqaalka kala waa isku mid laakiinse waxay ku kala duwan yihiin saddex jibaarani lixdiisa wajiba way is wada leeyihiin sajibakana lixdiisa waji ayaa kala gaara oo laba kasto iska soo horjeedaba way isleeyihiin way kaas tusaalihiibuha iyo barashadoodii muuqaal ahaan aynu baranaynay ayay kaasuha marka haddii marka xitaan ku sii celiyo saddex jibaarane waa shaxan leh lix weji lixdiisa weji laba dhinac oo kasta iska soo horjeedaba dhamaantood lixdiisa weji way wada leeyihiin haddii saddex jibaarane noqoto haddii saddex jibaaka noqotana laba dhinac oo kasta iska soo horjeedaba way isleeyihiin waayahay intaas aan ku dhaafno tusaalahaas maxaa tale barashadooda muuqaal ahaana waa kan halkan imika waxa lagu kan imika shaxankan sajibaka iyo saddex jibaaran labadaba waa noqon karaa waayahay halkan waxa weeye dherer inta waxa la radaa maxay inta shaxanka dherer baa la radaa intana waxa la radaa balac baa la radaa intana waxa la radaa balac intana balac baa la radaa halkan waxa weeye joogi bartana waxa weeye waa joogi iyaduna marka joogi waa dhinacaas joogi waayahay marka labada shaxan bay tusaalooyin ka baran doonaa bal hadda aynu eegi doonaa tusaalooyin
waayahay waa bejka maxay tale 95 ay weeye bejka 95 mid maanta dhiganay bejka kala shalay bayn soo wada dhiganay dhamaantoodii casharadii kala shalay bayn soo wada dhiganay waayahay markaas tusaalaha koobaad waxa lagu yiri 3 jibaarani 3 jibaarani 3 jibaarani ayaa leh 3 jibaarani ayaa leh 3 jibaarani ayaa leh dhinac cabirkiisu yahay dhinac cabirkiisu yahay 4 mitir 4 mitir 3 jibaarani ayaa leh dhinac cabirkiisu yahay 4 sentimitir waa maxay mugga 3 jibaarani waa maxay mugga 3 jibaarani mugga 3 jibaarani waa maxay mugga 3 jibaarani waayahay mugga 3 jibaarani sidaan soo sheegnay wuxuu leeyahay 6 dhinac oo iska soo horjeeda oo iswada leeg sidaa daraadeed waxa lagu helayaa mugga 3 jibaarani maadaama 3 jibaar yahay waxa lagu helayaa mugga 3 jibaarani dhinac 3 jibaaran dhinac 3 jibaaran dhinac 3 jibaaran maadaama iswada leeyihiin dhamaan dhinacyadiisi 3 dhinac oo 3 jibaaran ayaa lagu helayaa qaacidadiisa mugga 3 jibaaran waxa lagu helaa dhinac 3 jibaaran mugga 3 jibaakana waxa lagu helaa mugga 3 jibaake waxa lagu helaa dherer times balac times joog mugga 3 jibaake kaas waa 3 jibaake jibaake kaas waa 3 jibaake qaacidada 3 jibaake waxa lagu helaa ama mugga 3 jibaake waxa lagu helaa dherer times balac times joog mugga 3 jibaaran waxa lagu helaa dhinac 3 jibaaran haddaba waa imika tusaalaheena koodu waa 3 jibaaran leh dhinac cabirkiisu yahay 4 mitir marka waa maxay lagu muggiisu mugga waxa lagu helayaa dhinac 3 jibaaran dhinacii waxaan ku bedelanayaa maxaa dhinac haystay 4 mitir 3 jibaaran 4 mitir 3 jibaaran marka saa daraadeed 4 baan 3 jeer isku dhufanaya sababtu ay tahay 3 jibaar ba saaran marka waxay noqonaysaa muggu wuxuu la mid yahay 4 mitir times 4 mitir times 4 mitir inta baan isku dhufanaya 4 ku dhufo 6 iyo 10 4na ku dhufo 4 iyo 60 I can prove that waan sii cadaynaya 4 ku dhufo waa 6 iyo 10 6 iyo 10 baan 4 ku dhufanaya 4 ku dhufo 6 4 iyo 20 maxaa sitaarday laban sitaarday waayay 4 ku dhufo hal waa 4 iyo labadan sitay arday ay u gee waxay noqonaysaa 6 maadaama 4 hal ku dhufo 4tii iyo labadan sitay 4 waxay noqonaysaa marka 6 waayay 4 iyo 60 marka muggan wuxuu la mid yahay 4 iyo 60 mitir 3 jibaaran mitir 3 jibaaran waayahay xageebu ka yimi mitir 3 jibaaran mitir wuxuu ahaa halbeegii ay wadatay 3 jibaaranaha meesha laysiiyay halbeegu watay ayaa wuxuu ahaa mitir maadaama mitir ha 3 jeer baan isku dhuftay 3 jeer ayaan mitirka isku dhuftay mitir times mitir markaasuu yimi mitir 3 jibaaran unitkaasu ama maxay tahay halbeegaasu sidaasuu ku yimi marka 4 iyo 60 mitir 3 jibaaran sidaasay ku yimi jawaabtaasi ku sax tahay ardayay waa page-ka 95 ayaad ka eegi doontaa casharkaas iyo tusaalaha noocaas ah waa yahay tusaalaheena ku sixiga sidan arday hore soo sheegnay markasta tirada weyn waxay noqonaysaa maxay tahay dhererka badi tir ku sixigtaana balaca tir ku sixigtaana joog marka shanta nimka waxay noqonaysaa dherer 5 mitir waxay noqonaysaa dhererkii
4 mitirna waxay noqonaysaa ballici 3 mitir baa timi 3 mitirna waxay noqonaysaa joogii bay noqonaysaa 3 mitirna waxay noqonaysaa joogii bay noqonaysaa sidaa daraadeed intaasaan ka shaqaynaya sajibaake ayaa leh dhinacyo cabirkiisu yahay 5 mitir iyo 4 mitir iyo 3 mitir waa yahay muga sajibaake maxaa lagu helaa muga sajibaake waxaa lagu helaa dherer times balac times joog muga sajibaake waxaa lagu helaa muga sajibaake waxaa lagu helaa dherer times balac times joog dherer times balac times joog ayaa lagu helaa muga sajibaake sidaa daraadeed muga sajibaake ayaan soo saaraya waxaa laysiiyey dherarkii maxaa lay weydiiyey mar kasta horta aad tiraahdaa arday markaas sidaa daraadeed waxaa laysiiyey dherer 5 mitir baa laysiiyey dherarka balacana waxaa laysiiyey 4 mitir joogana waxaa laysiiyey 3 mitir mar kale aan ku celiyo si aad maxay tale arday aad u fahantaan dherarka waxaa laysiiyey 5 mitir balacana waxaa laysiiyey 4 mitir joogana waxaa laysiiyey 3 mitir saddexdaasaan kala haystaa muga sajibaake soo saar baa lagu yiri mustiga sajibaakena waxaa lagu helaa dherer times balac times joog muga sajibaake waxaa lagu helaa dherer times balac times joog dherer times balac times joog halkaas qaacidadeedu ay maraysaa waa yahay waan ku badbedelinayaa dherarkii maxaan haystay 5 mitir baan haystay dherarkii times balaci maxaan haystay balaci waxaan haystay 4 mitir waa yahay si fiican hadda weeg waaye si fiican u dhageysto waa yahay 4 mitir ayaan ardayda laysiiyey oo balciya joogiina waxa laysiiyey 3 mitir intaasaan isku dhufanaya 5 4 ku dhufo waa 20 20 ku dhufo 3 waa 60 si kale aynu nahno 5 haddii 4 lagu dhufto waa 20 20kii waxaan ku dhufanayaa 3 3 0 ku dhufo waa 0 3 ku dhufo 2 6 waa 60 muga sajibaakahani wuxuu noqonayaa 60 sentimitir 60 mitir 3 jibaaran 60 mitir 3 jibaaran 60ku wuxuu ka yimi 5 ku dhufo 4 3na ku dhufo waa 60 mitir 3 jibaaran halbeegan wuxuu ka yimi siin haraba u soo cadaynay fasalkii shanaad iyo fasalka lixaad baan ku cadaynay hadeertole mitir times mitir times mitir 3 jeer marka mitir la isku dhufto wuxuu noqonayaa mitir 3 jibaaran haddii sentimitir 3 jeer la isku dhuftana wuxuu noqonayaa sentimitir 3 jibaaran haddii milimitir 3 jeer la isku dhuftana wuxuu noqonayaa milimitir 3 jibaaran haddii 2 jeer la isku dhuftana mitir 2 jibaaran iyo sentimitir 2 jibaaran iyo milimitir 2 jibaaran markaas daraadeed mug haddii lagu raado halbeega mugagu halbeegyada ay leeyihiin waxa sheeg haddii lagu raado waxa weeye sentimitir 2 jibaaran milimitir 2 jibaaran iyo mitir 2 jibaaran mitir 3 jibaaran iyo milimitir 3 jibaaran waa kuwaas ay halbeegyada ay leeyihiin mugagu badi waa 3 jibaar mugaga ay leeyihiin halbeegyada ay leeyihiin waa yahay halkaas aan kaga sii taginaa waa yahay sajibaake waxaan ku baranay halkan sajibaake iyo 3 jibaarani waa yahay waxaad ka soo shaqayn doontaa layliska ku qoran page-ka 96 arday page-ka 96 ayaad ka soo shaqayn doontaa layliska ku qoran insha Allah waa inoo kulantada dambe ayaynu markaa taa ku siigi doonaa haddii Ilaahay naftiinoo daayo waan ka sii soconaynaa casharkeena ku sii xiga sajibaake casharkeena ku sii xiga waxa weeye muga dhululubo waa yahay arday waxaan baranaynaa muga dhululubo inagoo ku jirna chapterkii 3aad ama cuntubkii 3aad ee geometriga waayo dhululubo waa maxay dhululubo waa adke ama walax daroora oo cirifyadiisu ay isleegihiin oo ah qaab goobo lehna dhinacyo toosan buu leeyahay maxay tale markaa waa muga dhululubo aan dhiganayna markaa dhululubo waa adke leh walax daroora oo cirifyadiisu ay isleegihiin oo leh qaab goobo markaa tabtaasoo kale noqonaysa marka lagu dhaho dhululubo waa saas laba cirif bay leedahay oo isleeg sidaa daraadeed waxay leedahay qaabkii goobadana ka ma aragtaa waad dhegaystayaal halka qaabka goobaday leedahay iyo daawadayaalba waa yahay markaas xagga sarena waxay ku leedahay qaab goobo xagga hoosena waxay ku leedahay qaab goobo labada dhinacna waa isleegihiin qaabkaasoo kale ayaa lahaa goobo markaa badi dhinacyadan waxay noqdaan joogag bay noqdaan kuwana gacamay noqdaan gacano ay kuwana noqdaan badi kuwana joogag bay noqdaan badi inta badan markaas shaxanka noocaas ayaa la yiraahdaa dhululubo markaas shaxanka noocaas wuxuu noqonayaa dhululubo waa yahay tusaalooyin bayn dhigan doonaa insha Allah u qaado by 2 divided by 7 ama 22 la hoos dhigay 7
labiyo labaatan la hoos dhigay toddoba u qaado bay labiyo labaatan la hoos dhigay toddoba labiyo labaatan la hoos dhigay toddoba bay waxaad u qaadanaysaa labiyo labaatan la hoos dhigay toddoba bay waxaad u qaadanaysaa labiyo labaatan la hoos dhigay toddoba waaye u qaado bay labiyo labaatan la hoos dhigay toddoba marka gacanku wuxuu leeyahay 7 sentimitir gacanku wuxuu leeyahay 7 sentimitir gacanku wuxuu leeyahay 7 sentimitir jooguna wuxuu leeyahay 12 sentimitir 12 sentimitir buu jooguna leeyahay sidaa awgeed waxa lagu raadi gacanka waxa lagu raadi muga dhululbo ayada raadinaysa markaa muga dhululbo qaacidada lagu helaa waxay noqonaysaa muga dhululbo qaacidada lagu helaa waxay noqonaysaa by times gacan square times joog by gacan square times joog by gacan square times joog waa qaacidada ay leedahay muga dhululbo waa qaacidada ay leedahay muga dhululbo waayahay sidaa awgeed waxa sameynaysaa inta meen ku bedelayna waa maxay muga dhulubooyinka leh joog 12 sentimitir iyo gacan 7 sentimitir u qaado by 12 divided by 7 by u qaado 12 divided by 7 waayo muga dhulubo waxa lagu helaa by times joog waxa lagu helaa by times gacan times joog waayahay muga soo qaadanaysa by maxaa lagu qaado 12 la hoos dhiga 7 oo joogii maxaa laysiiyay jooga waxa laysiiyay jooga gacanka waxa laysiiyay baan leeyahay gacanka sorry gacanka waxa laysiiyay 7 sentimitir gacanka waxa laysiiyay 7 sentimitir lagu dhuftay 7 sentimitir joogana maxaa laysiiyay jooga waxa laysiiyay 12 sentimitir jooga waxa laysiiyay 12 sentimitir jooga waxa laysiiyay 12 sentimitir waayahay xagee baan ardayga ka keenay 7 inaan 2 jeer isku dhufto waxaan ka keenay maadaama gacanku isku wargareysan yahay ama 2 jeer isku dhufsan yahay 2 jeer ayaan isku dhufanaya 7 ku dhufanaya 12 oo ku dhufanaya 12 kan ku dhufanaya waxay tahay 12 kan aan ku dhufanaya waxay tahay 12 kii joogu ha 7 iyo 7 sentimitir waxa ka yimaadeen waa gacankii baan ku bedeshay waayahay sidaa awgeed waxa sameynaya maxay isla baxa talan taaliban isku qaybinaya xagga 7 qaybi waa min hal xaggana 7 qaybi waa min hal 12 hal ku dhufo waa 12 7 ku dhufo 12 ku dhufo 12 waxaan ku dhufanaya 7 waay si fiican 7 ku dhufo 2 waa 4 iyo 10 7 ku dhufo 2 4 iyo 10 iyo midhaasitay 5 iyo 10 boqol iyo 4 ka tabay soo baxday waxaan ku sii dhufanaya 2 iyo 10 2 ku dhufo 4 waa 8 2 ku dhufo 5 waxa weeye 10 iyo midhaasitay 11 2 waxaad ku dhufanaysaa hal waa in 2 iyo midhaasitay 3 waay oo halka hore xamaassan bay 2 5 ku dhufo waa 10 0 dhigday xamaassan ha صح 2 ku hal ku dhufo 4 waa 4 hal ku dhufo 5 waa 5 hal ku dhufo hal waa hal isku geyntaas waa 8 4 0 ge waa 4 3 ge 5 waa 8 hashan la soo deg mugan wuxuu la mid noqonaya markaa 1848 sentimitir 3 jibaaran sentimitir 3 jibaaran wuxuu ka yimaanay ku waa mugo dhan ba dhamaantii si kale uu ku yimina sentimitirkaas sentimitirka ku dhacay sentimitirka ku si dhacay mid kasta hal baa u qarsoon xagga sare eeg sentimitir power 1 times sentimitir power 1 times sentimitir power 1 maadaama haddii ay xisaabtaadu isku dhufo tahay waxa la sameeyo dhamaan indhageyskaaga ama jibaaradaada waa sidaas fasalka janaad ku soo dhigatay inta sare ayaa la isku wada geeyaa waay hal kaawge hal waa 2 kaanooge 3 sentimitir 3 jibaaran halkaas uu ka cad iyo ka yimi waayahay muga dhulubadaas intaas la mid yahay arday markaas tusaalahaas ay naga filan waxaad ka soo shaqeyn doontaan layliska 10 kan ayaad ka soo shaqeyn doontaan oo ku yaala page-ka 8 iyo 9 ilaa 9 iyo 9 labada page waxa ku yaala laylisiya ku yaala
dayrsida ku yaala ayaad ka soo shaqayn doontaan hadduu ilaahay naftiinoo daayo maalmaha soo socda ayaad ka soo shaqayn doontaan cashir ku sii xiga insha Allah dhigi doonaa maanta dhululuba ahayd haddii lagu dhaho dhululuba waa maxay dhululuba waa adka leh walxa daloolo ama cidhiifyo isleeg oo ah qaab goobe lehna dhinacyo toosan ayay leedahay markaa shaxanka waa kaas muga dhululubo marka lagu weydiiyo lagu dhaho muga dhululubo maxaa lagu helaa waa inaad tirahdaa bay gacan laba jibaaran times joog muga dhululubo qaacidada lagu helaa waxa weeye bay gacan laba jibaaran times joog waay sida lagu raadiyo waa tan 22ka waa constanti mar kasta wax lagu siinayo oo ah bay mar baa lagu siinaya 3.14 ama 3.14 mar baa lagu siinaya mar 3.1/7 baa lagu siinaya marka kolba mar baa mid baa lagu siinaya imika waxaan lagu waad u qaado baa lagu u qaado bay 22 hoos dhiga 7 waayahay waxaad ka soo shaqayn doontaa page-ka 8 ilaa 9 dhammaan ardayda qaaliga ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waa salaamantiin halkan nagala socoteen waa idaacadda Hargeysa iyo TV-ga qaranka magacaygu waa Axmed Jaamac Cadaani ku magac dheer macaan Cadaani dhamaantiin intaan isku nimo doona cashirka xiga waa inoo kulanti dambe haddii Ilaahay naftiinoo daayo dhamaantiin caafimaad qab iyo ciblaan Ilaahay cudurkana ha naga dulqaado waxanahay wahdiga dugsiyada waxanahay wanada macalinka waxanahay wahdiga dugsiyada waxanahay wanada macalinka waagi baryaba awbax laga waraabsho waagi baryaba awbax laga waraabsho waxaan ku warwaraynaa wadankiina wax u barta oo xambaaro waajibkiisa wahsan mayno waaban mayno warwareegi mayno weewean mayno وحسن